السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح wanaagsan baan leeyahay inta subax u tahay habeen wanaagsan inta habeen u tahay maanta halka waxaan ku soo bandhigayaa si yar oo fudud oo laba shay ka kooban oo timaha ku bixin karto timaha ku nafaqeyn karto waxaan maanta ka soo dhigayaa waa xinaha caadiga ee naqaano iyo faa'iidooyinka uu leeyahay timaheena. faa'iidooyinka xinuhu uu leeyahay waa faa'iidooyin aan la soo koobi karin hadday noqoto jirka uu faa'iidooyinka uu leeyahay timaha uu leeyahay lugaha idiyaha dawo ahaan baa loo isticmaalaa waxyaabo badan baa loo isticmaalaa imika timahoo kale dadka timo daadanayaan oo kale timo daadska uu joojiyaa toxobta dadka leh toxobta ka baabiin dad toxob leedahay marka waxyaabo badan ayaa jira oo faa'iidooyin badan oo uu leeyahay marka aynu nimaadno qaabka loo isticmaalayo waxay laba malqacdood oo xina ah ee jabcad ku shubanaysaa waxaad ku daraysaa labada malqacdood waxaad ku daraysaa xabad beeda waxaad kale ku soo daraysaa xabad yogurt ama sabaadi ama caano fadhi kala soo taqaanaan saliid yar baad ku darsanaysaan waxaad jeceshiin yani saliid waad iska deyn kartaa hadda doontana waad ku darsanaysaa marka inta markaad isku darto isku walaaqaysaa kadibna madaxaad marsanaysaa waxa kale oo jira qofkii doonaya timayna u jilcaan oo kale ama timayna niciim uga dhigaan xabad muus intuu qaado ayuu ku dhex darayaa yani xabad muus shiidan ayuu ku dhex darayaa timuhu marsanaya marka xinaha faa'iidooyinkiisu waa cajiib ayo marka ugu horeysa isticmaasho maalintii koowaad ugu horeysa xumoosan timahaaga yara adkeynayo laakiin timahaaga ma adkeynayo timahaaga dhumuc buu yeelaya waliba khaasad dadka timahooda khafiifka yihiin timahooda wax yar oo khafiif oo in yar isku dhacaysa yihiin timo dhumuc la buusinaya marka fadlan ka faa'iideysta oo mahadsantiin fadlan subscribe like and share hay laabina oo mahadsantiin dhamaantiin soo dhawaada markasta